السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كأنه حاجة عافمات برنامج كمان توحنا كويسو كيبدونا موضوع مهمة كاسيوة infertility أما دالملانتا رأي الدمر بقى وحن ما أنت سجود أنا وهذا دونا أو دول waxa ay tahay dhalmalaan faham guud aan ka sii doona kadibna waxaan isu balansan doonaa inaan mid walbaba gooni uga hadalno tusaale dhalmalaanta ragga inaan gooni uga hadalno sidoo kale dhalmalaanta dumarka aan gooni uga hadalno haddii aan dul maro waxa ay tahay dhalmalaantu waa in labada qof ee wada jooga ay dareemaan xaalad kelinimo ah waxay rajeynayeen markii ay isku soo biirayeen in la saddexayn doono haddii ay taasi dhicin dadka qaarkood ku noqotaa mid rajabeel ah haddii ay ku haydo ilmo laan ma aha kaliya arrintaasi 10% ilaa 15 ayaa la sheegaa dadka lamaanaha inay arrintaani ama xaaladdan ilmo la'aanta ay hayso ilmo la'aanta ama dhalmo la'aantu waa markii muddo hal sano ah ay labada wada isqabta ay sameeyaan galmo aan wax taxadar laga sameyn waxaa jira galmooyin laga sameeyo taxadar oo la isticmaalo waxyaabo condom daawooyin qalab la geliyo minka gudihiisa kuwaas waxaa la yiraahdaa galmada laga sameeyay taxadar laakiin haddii wax taxadar aan la sameyn muddo hal sano ah uurna la qaadin waxaa la yiraahdaa waa dhalmalaantu waxay ka imaan kartaa wax quseeya labada qof ama wax hal qof kaliya intaas ay ka imaan kartaa laakiin nasiib wanaag waxaa jira in la xalin karo waxyaabaha qaarkood iyadoo la isticmaalayo daawooyin iyo habab kale calaamadaha dhalmalaanta maxaa ka mid ah dhalmalaantu wax calaamadaha oo saas u sii buuran ma leh marka laga reebo in aadan uur qaadin ama gabadhii aysan uur qaadin sidoo kale dumarka qaarkood ee xanuunka sidoo kale dumarka qaarkood ee dhalmo la'aantu hayso waxaa laga yaabaa inay leeyihiin in dhiigga caadada uu ku soo laabto ama guud ahaan uu ka maqan yahay sidoo kale nimanka laga yaabo iyagana ay la xanuunsanayaan infertility-ga ama dhalmo la'aanta waxaa laga yaabaa iyagana ay leeyihiin wax la yiraahdo hormonal problems ama dhanka hormoonada inay wax ka qaldan yihiin sida in isbedel uu ku yimaado timaha koritaankooda iyo shaqada dhanka galmada ah goorma baan dhakhtar in aado soo markasta baan dhakhtar in aado waxaad u baahanto kaliya haddii aad rabto inaad uur qaado adiga markaas ay aadi kartaa muddo hal sano gudahooda sidoo kale dumarka qaarkood waxaa loo soo jeedaa inay dhakhtarka iyagana booqdaan gabadha didadeedu ay ka weyn tahay 35 sano ama 40 sano way dhakhtarka booqtaa haddii gabadha ay leedahay caadadu inay ku soo laabanayso ama ka maqan tahay in dhakhtarka ay aragtaa dhakhtar oo haweena weyn aada haddii ku xanuunsanayso dhiigga caada sidoo kale haddii lagu sheegay wax la yiraahdo endometriosis ama pelvic inflammatory disease weyn dhakhtar aada haddii ay leedahay wax dhicis soo laabtay sidoo kale dhakhtarka in aada haddii kansar laga daaweeyay weyn dhakhtarkeena booqataa nimanka sidoo kale waxaa la rabaa dhakhtarka ay booqdaan haddii ay jirto spermka tayadiisu inay yar tahay ama problem kale uu ka jiro spermka xagiisa shahwada ama muuqaalkiisa noqdo sidoo kale haddii ay leeyihiin wax la yiraahdo testiga xagiisa in dhibaato ka jirto ama prostate oo kale ama sexual problem ay dhanka galmada xageeda problem ka jiro weynayna booqdaan dhakhtar iyaguna haddii wax kansar laga daaweeyay waa muhiim sidoo kale haddii xaniiyo ay ku yiriin ninka muuqahan weyn dhakhtar booqdaa sidoo kale meesha uu ku jiro kiish uu ku jiro xaninta ku jirto haddii uu barar ka dareemo waa inuu dhakhtarka aadaa maxaa keeni kara marka wax la yiraahdo si guud aan ka hadlo dhalmo la'aanta maxaa keeni kara waxaa la yiraahdaa 3 meelood hal meel dhibaatada waxay ka timaadaa dhanka ragga sidoo kale waxaa la yiraahdaa 3 meelood hal meel waxay ka timaadaa dumarka meesha kale soo saartay waxaa waaye labadoodii ka imaan kartaa nimanka maxaa ku sababi kara dhalmo la'aanta waxaa ku sababi kara kow spermka wax ka qaldayin shaqadeedii ama productionkeedii soo saartaankii wax ka qaldayin spermkii socodkiisa dib wax ka qaldayin haddii waxyaabaha qaarkood ay saameyn ku yeesheen oo sida chemicals oo kale cigarette oo kale inuu isticmaalo kale alcohol marijuana saameyn ku yeelan karta ama isticmaalka steroidka haddii uu gaar dhaawac xubnaha tarka oo kale sida inuu ku dhacay kansar oo kale saameyn ku yeelan karta
dumarka maxaa keeni kara si guud ahaan uga hadli karaa aan uga hadlaa insha allah waxaan faahfaahin doonaa xogta aan si kala u kala qaadi doono dumar iyo ragba mar kale insha allah si guud aan uga hadlaa dumarka maxaa keeni kara waxa la yiraahdo ovulation disorder ayaa keeni kara wax ka qaldamaan ukunta soo saaritaankeeda iyo siideynteedii sidoo kale in ilma galeenka ama qaybta hoose ilma galeenka meesha ku dhamaado ay wax ka jiraan dhibaato ka jirto sidoo kale inay xiran yihiin tubooyinka minka ama dhaawac u gaaray waxaa kaloo keeni kara in gabadhu xilli hore ee dhiigga caadadu ka istaago oo guud ahaan ka joogsado sidoo kale kansar hadduu ku dhaco kale way keeni kartaa maxaa risk factor u noqon kara maxaa dhibaato ku ahaan kara dhalmada xaggeeda daadoo kale wixii 30 ka badan oo kale 40 wixii ka badan oo kale nimanka kale wixii 40 ka badan waa dhibaato daadii macnaha dhalmada xaggeeda mushkilad ay ku tahay 30 ilaa 37 wixii ka badanna dumarka aygan waxay ku tahay mushkilad ku tahay isticmaalka muqaadaraadka nooca abtaan noqoto tobacco alcohol whatever miisaanka tirada badan miisaanka yar exercise ka tirada badan waxaasoo dhan waxay keeni karaan in oo dhibaato ay ku timaado dhanka dhalmada intaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena la soco qaybaha kan ku xiga oo aanu dul istaagi doono si qoto dheer insha Allah taala waa maasantiin